aqoon isweydaarsigan oo socon doona muddo 4 maalmood ah ayaa waxaa soo qaban qaabisay kulliyadda Computer Science ee Jaamacadda Banaadir. Aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa ka faa'iideysan doona ardayda kulliyadaha cilmiga kombiyuutarka ee dhigta jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Muqdisho. Ugu horeyn waxaa ka hadlay munaasabadda furitaanka aqoon isweydaarsigan dhiinka kulliyadda Computer Science ahna gudoomiye ku-xigeenka arrimaha waxbarashada ee Jaamacadda Banaadir Mudane Khaliif Muuse Warsame isagoo kula dardaarmay ardayda inay ka faa'iideystaan aqoon isweydaarsigan. TV-ga Jubbaland kaasoo ah mid ka mid ah warbaahinta ummadda Soomaaliyeed gaarsiisa akhbaaraadka cilmiga uu ka mid yahay isboortiga uu ka mid yahay waxaan uga mahadcelinaynaa maanta sida wanaagga iyo sharafta ah oo ay codkanaga ay ummadda Soomaaliyeed ugu tabiyeen kulliyadda Computer Science waxay ardada dhammaan iyo waalidiinta ugu bishaareynaysaa cilmi soo socday muddo 16 sano ah oo dufcaddii 16aad ay ka qalin jabisay ardada waxaan kula dardaarmeynaa mar labaad waalidiinta iyo ardada soo qalin jabinaysa waxaan kula dardaarmeynaa inay ka faa'iideystaan barnaamijka oo maanta koow ah 2 maalmood ayaa ka dhiman 14 iyo 15 bari iyo bari dambana waa dhigaynaa walaalayaal ku soo dhawaada ka faa'iideysta. Diiwaan hayaha guud ee kulliyadda Computer Science Engineer Xasan Cabdi Caraale oo asna goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ardayda ka faa'iideysan doonaan. maanta farxad weyn ay noo tahay inaan qabsano workshop oo maaragtay wax badan laga soo shaqeynayay oo ciwaankiisu yahay ICT Skills 2008 oo kulliyadda Computer Science ay qabato 2008 kan qabanayna waxay kaga duwan yihiin macnaha sanadii hore waxay ka kooban yahay ilaa 6 mowduuc ama seminars oo maalin walba waxa bixay laba mowduuc ama laba seminar waxaanu socon doonaa ilaa 3 maalin oo consultative ah oo xiriir ah waxaan ka soo qayb galinay sanadkan ardada oo banaanka imaanayso oo sida jaamacadaha kala dhigto kale ardada dugsiga ka soo qalin jooso oo daneynay kulliyadda inay ku soo biiraan waa si free ah maaragtay 3daas maalin inaan maaragtay uu deeqni ardada Soomaaliyeed oo teknoolajiyada baratay ama daneynayso ku jirto. qaar ka mid ah ardayda ka faa'iideysan doonta aqoon isweydaarsigan oo la hadlay warbaahinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay rajeynayaan inay ka baran doonaan. labaad markii saddexaad waxa uu mahadcelinaa ardayda ka soo qayb gashay kulli seminaarkan aad ku qiimaha badan u qaayaa badan kulliyadda waxay fiirsay baahi ka jirto magaalada oo in badan jaamacadaha kale iyo kulliyadaha kale aysan ka daboolin aysan ka fargareenin soo marka kulliyadda 100% u mahadsan tahay ardaydan waxa uu rajeynaa inay ka faa'iideystaan seminaarka maanta koono aniga maanta waa imaaday wax badan oo theory u haystay as practical as theory labadaba waa u faa'iiday waxaan rajeynaa maanta biri dambe in ay wax badan oo inta ka sii badan ka sii faa'iidi doono ardayda wadanka wax ku barata gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan ka qalin jibiyay kulliyadda telecommunication engineering jaamacadda Balaasma dufcada waxaan ahay batch 5 ardayda sanadkan qalin jibisay maanta waxaa ka soo qayb galay seminar ay soo qaban qaabisay jaamacadda Banaadir University oo runtii ku mahadsan inay u fasaxdo ama inay ka soo qayb galaan dhammaan ardayda Soomaaliyeed waxaana ku jira mowduucyo aniga qaas noo taabanay sida fiber optic iyo satellite communication marka waxa halkan bogaadin iyo hambali ugu diraya jaamacadda Banaadir oo inoo suurtagelisay inaan seminaaradan kaga faa'iideysano workshopyada ay noo qabanaysa jaamacadda sida ardayda jaamacadda dhigtay iyo kuwa banaanka ka imaanayo workshopkaas waxaan kaga faa'iideystay waxyaabo fara badan ee jaamacaddeeda ku soo bandhigtay. Jaamacadda Banaadir waxa ay ka mid tahay jaamacadihii ugu horeeyay ee burburkii kadib laga aasaasay magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Maxamed, Jubbaland TV, Muqdisho.